يا حافظا للذكر جئت لدارنا بالخير ثم استبشرت كل الدنا. ابني إياس أتيت نجما لامعا بل كوكبا يجري. وحكى براء طارق النبي إبراهيم عليه السلام. نبي إبراهيم عليه السلام ويعيسو علي جري إبراهيم ابن آزر وحقود شيء مقالة اللي يرادو أو magaaladaas oo ka dhisnayd boqortooyada reer Baabil ee wadanka hadda loo yaqaano Iraq. Nabi Ibrahim alayhi salaam waa nabiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dhigtay qaliilullah ama saaxib aad u dhow. Nabi Ibrahim alayhi salaam asagoo yar ay Ilaahay subhanahu wa ta'ala xusiiyay hanuunkiisa mar walba wuxuu ka fikiri jiray boqorka abuuray adduunkan oo dhan qaalaqa abuuray adduunkan oo dhan waa Allah subhanahu wa ta'ala. نبي إبراهيم عليه السلام قوم كيسا وحي عاود جرين أصنامتا كوا قارنا وحي عاود جرين حدقها كوا قارنا وحي عاود جرين بقر كمركز وتريناي بابل لديه جري نمرود. نبي إبراهيم أبيه سآزر وحوكا كان عسن جري أصنامتا ونا عاود جري مارين مالمها كميدة أيو أصنام انتو دياري أيو نبي إبراهيم عليه السلام وديبي وحونا كجري أورا السوق جيه نوسو إيبي كدب. نبي إبراهيم مركو مرايا آلكا ayuu ku riday oo ku yiri hadaad ilaahay tihiin isbadbaadiya. Nabi Ibrahim alayhi salaam markuu Allah subhanahu wa ta'ala uu risaalada u dhiibay wuxuu ka bilaabay aabihiisa Azar uu waaniyay wuxuuna u sheegay in dhagaxyadan uu caabudayo ay maqlaynin ayna arkaynin ay waxban u taraynin ayna dhibaynin ayna dheefsiinaynin. kadib aabihiisa wuxuu ugu hanjabay inuu waxa uu sheegay duu ka daan waayo inuu ku dili doono dhagax xaafadiisan uu ka fiijiyay. Nabi Ibrahim alayhi salaam aabiis markuu ka soo tagay wuxuu yimaaday qoomkiisa si uu wax ugu sheego wuxuuna yiri qoomkaygiiyow waxaan caabudaysiin waa baadil idinma maqlayaan idinma arkayaan. kadib waxay ku yiraahdeen Ibraahimow anaga kama tagayno waxay aabayaasheena hore u soo caabudi jireen. kadib Nabi Ibrahim alayhi salaam wuxuu ballan ku qaaday inuu jijibin doono oo halka tagi doono. kadib maalin ay u baxeen maalin ay iid u ahayd ay banaanka magaalada uga baxeen. kadib Nabi Ibrahim alayhi salaam jaanas ayuu ku helay uu jijibiyay ilaa uu ka soo reebay shii ugu weynaa. kadib markay soo noqdeen qoomkiisii waxay arkeen ilaahadoodii oo la jijibiyay. kadib waxay yiraahdeen yaa sidan sameeyay ku kamid ayaa yiri wiil yaro Ibrahim la dhahayo ay hadda u dhaaranayay ilaahadeena ayaan maqlayay. kadib Ibrahim la soo qabtay waxaana lagu yiri adiga ma sidan sameysay. Nabi Ibrahim alayhi salaam wuxuu yiri weydiya kan idinku weyn oo ilaahaydiina kan ugu weyn weydiya oo joogo ka ahay asagana baan ka tahaastay weydiya. kadib waxay yiraahdeen sidaan u weydiinaa wax anaga noo jawaabi karin. markaasuu yiri idinka isla yaaba idinkii waxaad caawudaysiin of baatihin. kadib waxay isweydiiyeen sida ay u argudi lahaayeen ilaahayadooda waxay qodeen god aad u weyn waxayna ku shideen dab. Nabi Ibrahim alayhi salaam gacmahii lugaha ka xirxireen intay ku tuurin ka hor Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu soo diray malakul Jibriil. malakul Jibriil wuxuu yiri Ibraahimow maxaad iga baahan tahay. markaasuu yiri Jibriilow waxba kaama baahni ani Allah subhanahu wa ta'ala la u baahanahay inuu ibadbaadin doono waan ogahay insha Allah. kadib Nabi Ibrahim alayhi salaam wuxuu yiri hasbunallah wa ni'mal wakiil waana lagu tuura tabkii walaalayaal. kadib wuxuuna ku jiray 40 maalin meeshaas ayuu ku cibaadaysanayay. waxa la yiraahdaa waxay gubtay xirgihii jirkiisa may gubin. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa amray dabka inuu qabow iyo nabadgelyo u noqdo Nabi Ibrahim alayhi salaam. Nabi Ibrahim alayhi salaam iyo Namrud wuxuu kamid ahaa afartii u talisay adduunyada waxayna kala ahaayeen laba muslimiin ah iyo laba gaala ah. labada muslimiinta ah waxay ahaayeen Nabi Suleymaan alayhi salaam iyo Dhulqarnayn. labada gaalada ah waxay ahaayeen Namrud iyo Baqtan Nasr. Namrud wuxuu ahaa waqtigii Nabi Ibrahim alayhi salaam. Namrud wuxuu ka taliyay adduunyada oo idil saldhigiisana wuxuu ahaa magaalada Baabil ee wadanka hadda loo yaqaano Iraq. Namrud waa nin awood Ilaahay siiyay wuxuuna sheegtay ilaahnimo dadka ayuu ugu yeeray inay isaga u sujuudaan. wuxuu gacanta ku hayay dadka waxay cuni lahaayeen Ilaahay ka sokow. kadib dadka ayuu qoodin jiray maalin maalmaha kamid ah asoo cuntada dadka siinayo ayaa Nabi Ibrahim alayhi salaam ayaa ku soo darsamay dadka cuntada qaadanayay. kadib
dadka markuu cunto siinayo wuxuu dhihi jiray yaa ilaahigiin ah markaasay dhihi jireen adiga waaye. kadib nabi ibraahim calayhi salaam markuu u umaaday ayuu ku yiri ibraahimow adiga yaa ilaahiga ah markaasuu yiri ilaahigay waa allah subxaanahu wa ta'ala. markaasuu Namruud u yaabay ayuu yiri ilaahiga sheegayso aniga maxaa ku kala duwannahay? markaasuu yiri allah subxaanahu wa ta'ala wuu dilaa wuuna nooleeyaa. kadib Namruud wuxuu yiri aniga waan dilaa waana nooleeyaa. tusaalaan ku siinuu yiri wuxuu soo qabtay 2 nin midna kurku ka jaray midna wuxuu dhahay orod. kadib nabi ibraahim calayhi salaam wuxuu ku xiray xujadii uu ku afjari lahaa gaalkan weyn arintiisa. wuxuu yiri allah subxaanahu wa ta'ala qorraxdu wuxuu ka soo bixiyaa dhanka bariga wuxuuna u ridaa dhanka galbeedka. adiga Namruud waxa ka rabaa inaad ka soo bixiso qorraxda dhanka galbeedka aadna u rido dhanka bariga. gaalkii madax ayaa wareeray meeshii ayayna ku afjarmatay doodii. qaabkee buu allah subxaanahu wa ta'ala u halaagay Namruud meeshuu kibir ka gaaray wuxuu samaystay manaarad aad u dheer. uu leeyahay waxaan ku gaarayaa ilaahi ibraahim waana ku soo dilayaa. allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu siiyay jaanis kale. wuxuu u soo diray malag oo ugu yeeray diinta iyo xaqa. markii koowaad ayuu ugu yeeray wuu diiday. mar labaad uu ugu yeeray wuu diiday. mar saddexaadkii ayuu ku yiri adiga iyo ilaahigaaga waxaad isku keentaan meel bannaan ah inta ciidan uu haystaan ha keensado ana ciidamadiidan diyaarsan. walaalayaal adoonkaas yar makhluuqa ah muxuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku halaagad u malaynaysaan? allah subxaanahu wa ta'ala Namruud wuxuu u soo diray kaneecadaas waxaa la yiri aad bay u fara badneed waxayna ku degisay ciidamadiisa idil. markaasay wada cunaysay hilibiyooda idil. markaasay xadaadanayeen lafahooda. hal xaba oo kaneecahaas ka mid ah ayaa Namruud sanka ka gashay. kadib waxay ku jirtaa la yiri 400 oo sano ay sankiisa ay intay dhex gashay ay maskaxda ka cuntay. kadib ayuu darbiyaha madax ku qaraaci jiray. sidaas ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku cadaabay asoo adduunyada joogo aakhirana ka sii badaran. kadib allah subxaanahu wa ta'ala meeshas ayuu ugu taqalusay oo nafta uga qaaday.